كل الحب والتقدير لأصحاب هذه الراية. كل الحب لمين؟ kadib markii deeqaha ay soo ururiyeen shacabka Soomaaliyeed ay gaadhay magaalada Gaza baahida iyo dhibaatada baahsan ee ay qabaan shacabka reer Gaza ayaa gaadhay heer waayeelka iyo carruurtu ay u tartamaan sidii ay ku heli lahaayeen cuntada bisil ee sida maalinlaha ah looga qaybiyo jikada shacabka Soomaaliyeed ee Gaza. اللهم احفظ الصومال وأهله واجعل عطاءهم سببا في رحمتك يا رب العالمين. يا رب بارك في شعب الصومال وأكرمهم كما أكرموا أهل غزة. حملة الشعب الصومالي لإغاثة أهل غزة تحت شعار أو إطعام في يوم ذي مسغبة. اليوم 51، اليوم 52، اليوم 53، اليوم 54، اليوم 55، اليوم 56، اليوم 57، اليوم 58، اليوم 59. والله احنا عينا نازحين متبهدلين وعينا مرميين في الشوارع. hadda waxaan noqonay sida bacaw wadooyinka daadsan oo kale ma helno cunto iyo cabitaan midna marmarka qaar dhowr maalmood ayaan dhacnaa cunto la'aan. والله العظيم والله waxa qabadka jikada shacabka Soomaaliyeed ee 10kii maalin ee la soo dhaafay laga bilaabo maalinkii 51 ilaa maalinkii 60. إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. deeqaha ay soo ururiyeen dadweynaha Soomaaliyeed ayaa noqotay mid lagu caawiyay qoysaskan iyo qoysas kale oo tabaaleysna sida Ahlaam oo ah gabar yar oo ay ku dhacday nafaqa darro. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من قلب غزة، من قلب المعاناة، نشكر أهلنا في الصومال على طبعهم بالغذاء لأهلنا في غزة. نسأل الله أن يبارك فيهم ونطلب منهم المزيد وشكرا لكم. نشكر الشعب الصومالي على هذا الطعام. fariinta loo diray dadweynaha Soomaaliyeed ayaa ah qoodi oo u gurmo walaalaha ka dhibaataysan carruurta iyo waayeelka daawade faanoole fari kama qodna dhibaatada Gaza waa mid ka sii daraysa.